baarlamaanka yuhuudda waxa uu codka kalsoonida siiyay xukuumaddu uu hogaamin doono milyaneerka ka taajiray tiknoolajiyadda ee Naftali Bennett. waxa uu hogaamiyaa xisbiga xagjirka ee Yamiina. waxa loo doortay inuu noqdo ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay taariikhda Israa'iil, kaasoo asal ahaan ka soo jeeda kooxdiimeedka mayalka adag ee yuhuudda. waxa uu meesha ka saaray Benjamin Netanyahu oo muddo 12 sano ra'iisul wasaaraha u ahaa Israa'iil. kadib fadhi buuq badan iyo sidoo kale fawdo iyo cayrin xubno badan oo ka tirsan baarlamaanka yuhuuddu ay hareeyeen, waxa codka kalsoonida la siiyay xukuumadda uu hogaamin doono xagjirkan mayalka adag. wuxuu helay 60 cod, halka 59 cod oo kalena ay ka soo horjeesteen. hal cod oo qurux ayuu ku hogaamiyey guusha. Naftali ayaana muddo 2 sano ah xukunka ra'iisul wasaarenimo hayn doona. kadib waxa uu xukunka ku wareejin doonaa hogaamiyaha xisbiga dhexe ee mucaaradka yuhuudka ah ee lagu magacaabo Yair Lapid, kaasoo ahaa wariye telefishin caan ah. sida ku cad heshiiska isbahaysi ee ay Naftali iyo Yair Lapid gaareen ama kala sixideen, mid walba oo ka mid ah wuxuu xilka hayn doonaa min 2 sano. waxa uu xukunka ku horeyn doona ninkan hadda la wareegay oo hayn doona ilaa laga gaarayo bisha Agoosto sanadka 2023. kadib waxa uu xukunka ku wareejin doonaa Yair Lapid oo isna sanadka 2025 hayn doona, sida uu sheegay wargeyska lagu magacaabo Haaretz. haddaba waa kuma madaxan cusub ee xafiiska la wareegay? waa madaxii hore ee shaqaalaha xafiiska Netanyahu, balse kaga guuleystay xilka ra'iisul wasaarenimo. Bennett waxa uu ku dhashay magaalada Haifa 25 Maarso 1972. waxaas ka dhalay 2 waalid oo Mareykanka ku dhashay. waxa uu la nool yahay xaaskiisa oo lagu magacaabo Galate iyo 4 carruur ay u dhashay oo ku nool magaalada lagu magacaabo Ra'ena oo ku taala bartamaha Israa'iil. Bennett sida Netanyahu oo kale waxa uu hore ugu soo khidmeeyay ama ka tirsanaa ciidanka Israa'iil qaybta gaarka ah. waxa uu soo galay siyaasadda markii uu iska iibiyey shirkadiisii xagga tiknoolajiyadda isagoo ku iibiyey $145 milyan sanadku markuu ahaa 2005. kadib waxa uu madax ka noqday xafiiska Netanyahu oo waqtigaasi muxaarad ahaa. kadib markii uu ka tagay xafiiska Netanyahu 2010 waxa uu noqday gudoomiyaha golaha dejinta yuhuudda daanta galbeed iyo Gaza. 2012 waxa uu qabtay xilka xisbiga midigta fog ee yuhuudda. 2012 waxa kale oo wajahaya dhibaato ahayd inay waayeen dhammaan kuraastoodii baarlamaanka. waxa uu ku guuleystay inuu xoojiyo joogitaanka xubnaha xisbigaas ee fadhiga baarlamaanka, weliba 4 laab inta ay hore u ahaayeen kadib markii uu bilaabay jeedinta khudbada taxanaha oo ku saabsan khilaafka kala dhexeeya Falastiin. qaar ka mid ah khudbadihiisa waxa uu ku baaqay in la dilo maxaabiista Falastiin markii la sii dayn lahaa, waa sida uu hadalka u yiri. waxa uu sheegay in dhulka daanta galbeed uusan ahayn dhul Falastiin ka tirsan, maadaama markii halkaas ay tagayeen aysan halkaasi joogin dowlad Falastiin ah. waxa uu ka mid yahay dadka rumaysan in khilaafka Israa'iil iyo Falastiin aan la xallin karin. waxaa lagu tiriyaa inuu yahay mid ka mid ah dadka sida aadka uga soo horjeeda dhismaha dowlad madax bannaan Falastiin ay leedahay. inkastoo uu asal ahaan ka soo jeeda garabka midig ee diinta yuhuudda, haddana Bennett waxba uma arko inuu u gacan qaado ama salaamo haweeney ama walwal kama qabo su'aalaha ku saabsan xukunka diinta ee dalka. waxa uu leeyahay fikrado xor oo ku saabsan qiyamka qaarkood, gaar ahaan arrimaha la xiriira dadka jinsigooda dooriyay. 2018 waxa uu magacaabay xisbiga guriga, isagoo u bedelay magaca lagu magacaabo Yamiina. ninkan waxa uu inta badan ku hadlaa hadallo qallafsan oo ka dhana Falastiin. wuxuu taageeraa siyaasadda dib u dejinta yuhuudda iyo in dhulka daanta galbeed lagu daro dhulka ay yuhuuddu haysato. sidoo kale Iiraan ayuu doonayaa siyaasad qallafsan in lagula dhaqmo. kadib markii uu noqday ra'iisul wasaaraha yuhuudda, waxa uu sidoo kale noqday ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay taariikhda Israa'iil oo ka soo jeeda xisbi diiniya. inkastoo natiijada ay ku guuleysteen aysan sidaas u buurnayn, haddana Naftali Bennett waxa uu awooday isbuucyadii la soo dhaafay inuu hadaljeedintiisa uga saameyn bato dhiggiisa Netanyahu oo 12 sano ra'iisul wasaaraha yuhuudda soo ahaa. marxaladda cusub ee hadda ka taagan dhulka Falastiin iyo imaanshihiisuna waxaa durba lagu fasirayaa in baasiin ay xaaladda ku soo shubi karto, lana filan karo dagaallo cusub oo Falastiin iyo yuhuudda dhex mara.